walaal dagaalka wuxuu noqonaa dagaalku markii laga furso waayo ayaa la qaadaa sideedaba midna dagaal ma jecla waxaa jiray muddo bil iyo bar ka hor ahaa waxaa lagu heshiiyey ciidamada amisom ee sector 4 iyo odayaasha dhaqanka iyo qoladan soo magacaaday in aan magaalada dhexdeeda aan wax hub iyo ciidan aysan la soo gelin golaha kacdoonka garabkooda ciidan dadka dhinaca kalena dadka shacabka oo afkaartooda cabiraya oo Hirshabeelle iyo waxaan xoog lagu soo dhisay يعني قرب درada lagu soo dhisay marooksiga diidan aan la taabanin ballantii ayay ka baxeen marka nimankii soo magacaabay iyo tiimkii darajeeda ayaa ka baxay ballantii waxaad la socotaa idaacadaha caalamiga iyo localka inta maartay aad ka arkaysa dad dhalinyaro oo kacdoonka ka tirsan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada xiran yihiin waxaa ka sii liitay dadkaas waa 6 qofood dumar laba ilmo yaryar ayay ka soo tagteen oo laga soo waday midna waa islaan xaamila oo 8 bilood jirta marka wax yani insaanka uu san qaado keenaa meesha ka dhacay in talaabtaas la qaaday wax keenay ballankii la buriyo kow iyo dadkaas birmageydada oo haweenka ilmaha nuujinaya iyo kuwa uur kale oo xiran ilaa hadda aan cidnana u tegi karin oo haweenkii xirneed haween xaamila shalay loogu geeyey bacday ku umul lahayd iyo qalabkii yani maternity-ga loogu geeyey xabsiga dhexdiisa waayahay ujeedkiina marka ma wuxuu ahaa dadkaas xiran in aad weerarka u qaadaan ayaga sidaad aad ku soo furataan mise weerar guud oo aad maamulka uga soo horjeedeen ayaad qaadeen weerarka ujeedooyin badan ayay lahay balse xalku wuxuu ahay in dadka la soo daayo dulmiga lagu haysto ayaa manbantiga aheeday sidaas ayuu ahay dagaalku u dhacay waayahay dadkii hadda lama soo dayn sidaan warka ku hayno intaad magaaladii tagteen ayaad xabado rideen waad iska soo noqoteen walow qasaare hadda nolo sheegay marka aaway dadkii ujeedada aad u baxdeen oo ahayd in aad dadka xiran aad soo sii daysaan maxaa idinka hor istaagay waxaa hor istaagay walaal sabab oo in qasaaraha la yareeyo ayadoo markii dagaalku dhacay odayaasha dhaqanka oo deegaanka oo uqaasha ayaa naga soo baxay kadibna waxay dhaheen arrintaas annaga ayaa ka shaqaynayna dadkaas in lasoo deeyo si nabada lagu soo deeyo awalba dulmiyay ku xirnaayeen marka waxay naga codsadeen inaan dib uga baxno oonan magaalada iyo ganacsigeeda iyo ammaankeeda iyo bulshada iyo deganaanteeda aan qalqal la gelin oon burbur naf iyo mid hanti midna aan la keenin sidaasaan marka odayaasha dhaqanka oo bulshada matalay ayaan warkooda yeelnay dib aanan uga baxnay marka arrintan ka warsigeynaa haddii hadda dadka la soo deeyi waayana marka waxa weeye dadka inaan la dagaalno ayaa loo bannaan waayahay waxaan ognahay in badan markaan ila soo bandhigay wada hadallo madaxweyne ku-xigeenkii Hirshabeelle Yuusuf Dabageeda ku sugan beledweyne wada hadalkii waa diideen maxay xaaladiinu marka ku furan kartaayo ma in dagaal aad qaadaan maalin walba beledweyne xaalad marka ay ku jirto miyaa diyaar u tihiin walaal anaga aan ka socon taasig meeshaas anaga ma diidin wada hadal ma diidin qof bilaala wada hadal iyo waxay tahay qof bilaala oo raba inuu dadkan masiirkooda iyo sharafkooda iyo siyaasadooda iyo matalaadooda iibsado waa kala labo wax wada hadala oo ummadan xuquuqda ay sheeganayso naba noo imaaninba cid ka socotaan nooma imaanin nin oo bilaalahoo lasoo diray oo raba inay dadkan iibsado waxaan ahayn maanan arag marka wada hadal annaga diyaara unahay wada hadalkuna waa inaad xuquuqdaada ku helaysid midkaan xaqaaga lagu helayno wada hadal maayo dadka ku dhagaysanaya bal sharaxaad ka sii maxay tahay xuquuqdaad sheegayso idinka maqan meesha in doorasho jawhar ay ka dhacday madaxweyne ku-xigeenkii uu ka soo jeedo gobolka Hiiraan gudoomiyihii baarlamaanka gobolka Hiiraan uu ka soo jeedo waa maxay xuquuqda kale oo aad raadinayso walaal aan ku soo meeshaas doorasho kama dhicin waxay adiga waa la socotaa madaxweynaha boqolkiiba boqol guulaystayaa codkii helay iyo madaxweyne ku-xigeenka boqolkiiba boqol codkii helay meeshaas batalaas Hiiraan ma oolin dad liis lagu qoray oo dhammaantood diyaarad lagu keenaa meesha la keenay ummadana la dul saarayaa marka dulmigaas cidii samaysay iyo cidda ka dambaysana waan ognahay laakiin maalinteeda lagu tegi doonaa haddase kuwa soo magacaabay oo hoolka jawhar galay isku sabciyey qoladaasaan ishaynaa anaga ayaga marka hadda warkiina wuxuu ku furan karaa soo ma ahan in aad dagaal qaadaan wax wada hadal aad diyaar u ahayn inta hadda waad noo xaqiijinaysaa maya anaga wada hadal diyaaraan u nahay waxaan diidaynaa bilaalkaan diidaynaa wada hadal diyaaraan u nahay yaad la furaysaan wada hadallada cidday taladu ka go'do oo wax ka go'do oo dadkan xuquuqdooda awood u lahaa inay keento haddii aysan maaragtahay bilaal aynan noo soo dirin way isgaranaysaa iyadoo waayahay hadda marka ma tilmaami kartaa dadka aad doonaysaan in aad si toosa wada hadal ula furtaan maadaama aad tiri dagaal annagu diyaar uma nihin
sideedaba horaan kugu sheegay dagaalku waxa weeye nihaayat almudaaf waaye wareega ugu dambeeya dagaalku dhaca maaha cidna dagaal ma rabto dagaal waa ogtahay dhibaatada iyo burburka midka dhaqaale iyo midka nafeed ay leeyahay annaga haddii cidda ay taladu ka go'do oo waxaan samaysatay oo bedeli karta basaa rabnaa anaga waxa kaloo dhan waxa weeye bilaal waaye weligeena nooma imaan qof aan bilaal ahayn oon annaga nasiirkeena bilaalay maanan arkinba waxaa nagu maqaalaha in weerarka saaka ee beledweyne lagu qaaday idinka aad qaadeen yaa qaadanaya marka mas-uuliyadda dhibka saaka meeshaas ka dhacay oo inta badan dad ay ku dhaawacmeen waxaa qaadanaya ninka haweenka uur kale iyo kuwa ilmaha nuujinaya inta guryahoodii kasoo qaaday xabsi nabadsugireed ku haaya oo u diiday noloshii iyo dhaqdhaqaaqeedi iyo xurriyadeedi ninkaasaa mas-uuliyadda qaadayaaga qorshihiina hadda ugu dambeeyo oo idin degsan oo xaaladan gobolka hiiraan aan dhibaato ka dhicin dib dambe muxuu yahay annaga qorshaheena waxa weeye in dulmiga laga daayo dadkan cidda ay aan matelin oo waana masalaysaa laleeyaa laga daayo waxa la qaatay oo garabka la saartay oo la xadayna miiska dushiisa la keeno waxa la wada leeyahay la wada dhisto kadibna haddii lagu heshiiyaayana la kala joogo haddii lagu heshiiyana la isla samaysto intaa waayo qorshaheena ana wax kaloo wadano malahan cidan duulaan ku nahay malahan qolaa gobol aan duulaan ku nahay malahan dadka shabeellada dhexdeeda iyo dadkan waa isku dad waa walaalo waxa la diidan yahay dulmiga waxay aniga adiga naga dhexeeyey ayaan qaadanayaa wixii biyaan qaatay waxaadina waa ku darsaday dabadeedna waan kuga xakumayaa sidaa weeye weriisukaasifo meesha taala hadda xaggee baad ku sugantihiin saaka magaalada dagaal aad ku qaadeen dib baad usoo baxdeen xaggee igala hadlaysaa hadda waxaan kaala hadlayaa magaalada gudaheeda oo hadda beledweyne aad ku sugan tahay sida warkaaga ku cad nacam haa beledweynean joogaani ma laga yaabaa in hadda dib dambe aad dagaal u qaadaan qorshihiina ma ku jirtaa wallahi dagaal dee waa weriye waa horaan kugu sheegayba dagaalka aniga nafteyda kula hadlaya dagaalka ma jecli jamaal xuud ma jecla golaha kacdoonka ma jecla shacabkaana ma jecla hal qofoo jecel ma jiro dagaal waa taqaanaa dagaal balse haddii waxa weeyaan alkay aakhiri dawaa ay tira carabta dabku waa meesha ugu dambaysa oo qofka lagu daaweeyo haddii dagaalkana lagu qasbo waa isdifaacayna haddaana lagu qasbina cidna dagaal ku qaadanayna waxaan rabnaa anaga dadka dulmiga ku xiran in la fahmo dadka xorriyadooda iyo ra'yigooda xorriyata ra'yigooda xorriyata siyaasadooda dhaqaalahooda loo madax baneeyo ayagoon qoryo wadanin oo qof xabadkeeda ay ku jirnaa suuqa gabdha laga soo aruuriyo xaamilooyin iyo ilmo nuujinaya adiga hadda waxaas maxaa ku sheegi lahaa waan ku jecelayaa maxaa ku tilmaami lahayd waayahay laakiin sooma wanaagsanayn in dhibtaas intay imaan lahayd laga baaqsado wixii jiraana la wada fariisto dhowr mar waxaan ognahay in wada hadallani la soo bandhigay idinku aad ka cagajiideen shuruudo badan aad keenteen shuruudihii qayb ka mid ah xitaa dowladda Soomaaliya ee meesha soo gashay wasiirkii arrimaha gudaha muddo beledweyne joogo waqtiga kaga dhamaaday marka inta badan sida aan xogaha ku hayno idinka xaqiina wax ka socon laayihiin marka sidee isu qabanayaan hadalkaaga afhayeen aan ka soo arrintaas fantastic anaga wax wada hadala iyo cid matalaad يعني قال أو نوت مدمرة جبت حدا كلها حتى يفكر إنها جراح نعدت رجلا ويؤمنه شود أن قادوا أن فهد ياسين يقولها حرية وحن هينا اللي جواي أنت سجود وقتك لها يعني واحد نمر ما وقتك اللي جرينا جنال شود هاي راعة وشود هاي راعة ما هي العيد هاي اللي من قصة مثلاً واحد ما هاي سكانة لي ذكر رجلا مرة فيه قرأ لهنا واحد ذكر قرنا واللي يجي فرد والله الشاهد والولد أوشاهد الرياشة أوشاهد هذا ما جبت واحد ذكر حقيقة يقولون ناس يعني ما جبت أنا تبعي